أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام أخياري أصحابتي ولا لها جنالك دقاق أدحشدي سودو هذا ومقال عسب إنا لله وإنا إليه راجعون waxaas aad u jeedaan ee halkaas maaragtay deb iyo colaad iyo dagaal ka dhacayo wuxuu dhex maraa dagaalkaas shacabkii soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada muqdisho iyo dowladda maaragtay dowlad isku sheega ee mooryaanta ahee shacabka barakicinayo ayaa dhibkaas maanta magaalada muqdisho shacabkeedii ay ku waagbariisteen waxaa lagu qaaday boob iyo maaragtay dagaal in la barakiciyo shacabkii oo maaragtay qaar qaxo qaar la dilo qaar la dhaco iyo qaar rabaayad laga dhigo loogu talagalay in shacabkii soomaaliyeed ay ku noolaadaan okay shalay waxaan ka kari weynay markaan wax u sheegayni shacabow dhibaatada idinka idinku socotaa waalidiin fara badan ayaa qurbihii maaragtay ku baaba'ay oo yacni curyaamo ku noqday oo dhaminti ku noqdo waxna maaragtay la qabsan la oo dibadihii soo aaday okay qofkii 40 jir ahaa markuu soo qaxay maanta 75 sano uu jiraa 35 sano ayaa maaragtay dibaddan u wareegaa qofkii oo maaragtay da' noqday dalkiisii hamuun u qabo helaynin dhibaatooyin ay dibadihii maaragtay ay ku haystaa waalidiinta dadkii waalidiin ahaa ee waddanka dhexdiisa ku noolaana qaaraa memorigoodii uba gubtay oon garanaynin gurigooda hadday ka baxaan inay usoo noqdaan shacabka intaasaan la hadlaynin iyo dhalinyarada oo aan lahayn war waxaan wax idinku filneen dan idinku filneen yacni ogaada oo maaragtay iska jira oo maaragtay hurdada ka kaca oo qabiilkan nilagu kala bahdilayoo nilagu kala ququbanaayo qof maaragtay dantiisa gaar ahaaneed raba inuu fulisto yuu maaragtay idinku maaragtay oorkacsanin way maqli waayeen maaragtay khaasatan shacabka degan magaalada muqdisho war ma maqlaan dhibaatooyinkana ayagay maanta 24 saac qarax hadduu dhaco ayagay haysataa hadday xabado iyo maaragtay dagaal ay yimaadiin ayagay haysataa haddii barakac yimaado ayagaa la barakicinaa war walaalayaalow intay aqligiina furtaan indhaha fura magaalada muqdisho saaka waxay ku waagbarisatay walaalayaal dagaalkaas aad u jeedaan wuxuuna u dhexeeyaa shacabka iyo maaragtay ciidan isku sheega ee dowladda ee maaragtay mooryaanta ahee ugu talagaleen inay baabi'iyaan shacabka soomaaliyeed 4 sano maaragtay ee xasan sheekh uu soo laabtay inta dhimatay maa cadadna wala xisaaban waa lama tirin karo wuxuu yidhi minaa gabba wax iga gale ma jirto intii dhimatay iyo intii gaajootay iyo intii horeyna wuu u sheegay isaga wixiisa af cad oo ballaaran wuxuu kula yidhi masjid dhexdiisa asoo ku jiro khudbeenaayo waxba igama gelin oo yidhi hooyooyinka soo ooynaaye xasan wax nooma qabta dhahaay animaa idin dhalou yidhi animaa idin dhalay okay ninka madaxweynaha ee marka haddii waddanka mas-uuliyaddiisa uusan qaadi karin ee shacabkii uu leeyahay aniga maa idin dhalay isagoo masaajid dhex taagan uuna raba inuu noqdo weliyul amarkii oo waddanka shacabka inay isku duubmaan ee ay ka soo horjeestaan xaq ayay u leeyihiin ilaahay xaqa ayuu la jiraa subxaana allah waa la bursaday ayagoo maaragtay hub wato oo aad moodid waddan kale inay la dagaalamayeen lasoo hubeeyey maaragtay ciidankii dowlad isku sheega ahaa way carareen subxaana allah jabaye 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 meelay ka baxaana la waayay yaa bursanaayo shacabkii loogu yimid in la barakiciyo sababtoo shacabka hadda way soo dhugaagayiin taa ula hadlaynay intaan in kasii fiicanna waa rajaynaynaa inay dhugaagaan oo ay maaragtay hurdada ka kacaan oo ay isku duubmaan dowlad ma haystaan qof dantiisa maaragtay u yimid ee dantiisa keliya fiirsanayo oo aan maaragtay garanaynin shacabkii soomaaliyeed inuu mas-uul ka yahay ayaa madaxweyne ahaan ugu yimid ayaga ma dooranin laakiin dhibaatada shacabka haysata waxay tahay adiga maad dooranin laakiin waxaad ku qaldan tihiin mararka qaarkeed maaragtay buumuuniska iyo maaragtay in yaroo lacag in nilii dhiibo maaragtay oo aad soo baxdaanood dal xureeye maana ninkan dal xalaashaa la yidhaaha magacaas aa u bixiseen ee beenta ah adinku idinku baabi'ina intaad u sacabtumaysaan maaragtay hadda wuxuu isku dayey inuuba maaragtay sidii wuxuu ka dhigtoo kale boqortooyadii oo kale ee sanad walba oo iska soo laabto oo sanad walba ay maaragtay sidii 9-kii loo noolaado ma 9-kii aa la joogaa mise 35 sana ka soo wareegato hadda waxaa la joogaa 2025 dabkan wuxuu qiiqaayay maaragtay 9-kii maalin walba inuu dabkan qiiqo holcaan uu socdo waddankiina la yidhaaha maaragtay dowladuu leeyahay kaale arag waaye niman fara badan oo beenaalayaal ahoo ilaahay aan ka cabsanaynin oo dibadahan ka dhoofaayo dadka usoo sharxaaya inay waddanka maaragtay nabad yahay inuu maaragtay waddanka qurux badan yahay yaab anaa mar kale kasoo hadli doono qaar kalean arkaayo oo been iyo brobagando soo gudbinayo waddanka kaale arag waa oo waddanka dhismihiisa lama arki karo oo saan ilaahay ka cabsada maaragtay magacyada beento aa la wada baxdeen haddana aad
dulmiga aad dhex dabaalanaysaan war ilaahay uga cabsada shacabkan Soomaaliyeed ee barakacaya dhibka u haysta boobka u haysta waa lagu dheelmaday qaarkood ayagoo hurdaayo ilmo yar yaroo maaragtay aanan bixi karin oo yacni yaruurac ah saana loo barakicinoyaa waa shacabki waxaan xabadaha lagu dhex wado wallaahi codka haddaan idiin sii day waa yaabaysiin dhagagagac dagaaladii yaa maanta dhan u joogi karo waagi beriyo sanadkii maaragtay dhasho bishii dhalata yaa qax u joogi karo walaalayaal oo qax un joogto ah ee aan dhammaanaynin maaragtay boob dhul boobsi yacni intaan yaroo kuu dhiman haddii aad soo noqonaysid haddaadan soo noqonayninba waa intaad jeebka sii gashan karto waa inaad sii gashataa shalay waa lala shiray mucaaridkiyaa la shiray mucaaridkii oo ayagana dhexdoodii munaafiqiin isku ah subxaana allah war mucaarid haddaad tihiin mucaarid maxaa la yidhaahaa wixaan waddanka ka socdana ma anfaco wax ka wanaagsan oo ka duwan ayaan rabnaa soo mucaaridka saas ma aha mucaaridka aad arkaysaan ee maaragtay soomaaliya kulligood waxay yihiin inay ayagana dan gaar ahaaneed ay rabaan xasankan markuu maaragtay joogay maxamed farmaajo muxuu ku qaylin jiri waana la caburinaa waa in la hadlaa ka yeeli mayno qof inuu maaragtay jeebkiisa oo gashto dowladda ka yeeli mayno hadda asaa dowladdii maaragtay jeebka gashtay oo yiri shaksi hadli kara iyo shaksi maaragtay iga daba nicleyn kara ma jirto siinaayo maalin dhoweed sidaan tuu xiraashay dhulkii maaragtay dowladda ay lahayd yacni oo shaksi gaar ahaaneed usan lahayn ee dadka dhan ka dhexeeyey ayuu 24 saac xaraasha dhidid maaragtay oo dad Soomaaliyeed oo dhulka qodaay ayaa maaragtay dhulkaas oo dhan lagu dhisay oo lagu hagaajiyo maaragtay iyo dad badan canshuurtooda ayaa lagu hagaajiyo suuqyadaas lagu dhisay wuu yimid waa kana magaalada muqdisho meel lagu dhisay iyo meel ay ku dhisantay kama warqabin ma ogeen kuma dhalanin kuma korin wuu soo galay soo galootii ahaa daf hadda waa kana wax walbo inta anaale shirkii ay la shireen shalay macaaridka ay la fariisteen wuxuu yiri maaragtay aniga meelo qaarkood kama tanaasuli kari waayo qarash iyo waqti iyo lacag badana iiga baxday aabaha maale waxa qarash iiga baxay iyo waqti iiga baxay adeeysid ma wax gaar ahaaneed oo adiga aleeda waqti aduu kaaga baxay aduu qarash kaaga baxay hadayba tahay wax wadaniyad oo wadankan wax loogu qabanayo ama wadankan maaragtay horumarkiisa iyo dadkiisa ka hadlaaya ama ka sheekeenayo okay hadii aad qabatid waqtigaada markuu ku dhamaado waa inaad sii dhaqaaqdaa qarasha iiga baxay aniga ma yeelay meesha inaan ka dhaqaaqo qarasha iiga baxay iyo waqti meeshaan aniga iyo lacag badana iiga baxday waxaan ma rabin inaan ka tanaasulo kaanaha shirkad asaga uu leeyahay kaanaha iskuul uu leeyahay kaanaha maaragtay dugsigii oo maaragtay yaa badana waxaasay shalay ay isku macaarideen isku diideen is hormari waayeen shirkoodii wuxuu ku soo dhamaaday awalba kulligood badankood munaafiqiin ay ahaayeen oo ilaahay kama cabsadaano uurkaasay ka wada bukaan markaas intay isii yimaadiina been iskula qosnaayeen yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun war ilaahay kama cabsanaayin dadkaana shacabkii oo intaa hurdada ka kacdaan 24 saac waalidiintiina ma aragtay la qaxiyaa dhalinyarada maanta dagaalka ku dhashay ee 35 jirka 35 sano adoo jirtid oo dagaal ku dhalatay caruurtaad dhashay in lagugu hor barakiciyo adoo barakac ku soo kortay iyo dagaal iyo ma aragtay boob iyo dhac haddana caruurtaadii inay kusii koraan waalidkaadii adigu soo koriyay dhibaatadaas iyo qaxaas kula soo korinayina maaragtay oo 70 jir ana irin dorteeda uu ku fadhiyo imintiyo maaragtay memoryga ka gubto qaxi karin oo in xabad ay dhicis in kala hata uusan ka warqabin hadda xasan sheekh oo sii nicleynaysid ka waran marka oo sii taageeraysid yacni dandarada maanta haysata dhalinyarada aqli xumada qaarkood jaamacaday ka soo wada bixeen aaday wax u barteen marna lagama yaabo inay shahaadadoodii iyo waxay barteen ay wax ku qabtaan ee raaciye maanta dhan qabiilkaasay u daba gurayeen inay daba raacinayeen war hurdada ka kaco ilaahay ka cabsada oo ma aragtay heeryadan iska dulqaada xasan inuu ma aragtay idin dhibaateey maahan wallaahi wax uu idinku maqaya ma jirto waa qof aan wax soo baranin waagi baryaba wixii ku soo dhacu ku hadlaa intee ma aragtay aad aragtiin oo waagi baryaba la keenaa waxaasan qaban rabnaa waxaasan sameyn rabnaa waxaana yeeli rabnaa qof iyo cod ma meel saan ma aragtay xabadda iyo rasaasta ee uga socoto ma aragtay qof iyo cod ma lagu dooran karaa ma aragtay madaxweynaha imaanaya wuu riyoona isla markaas markuu soo riyoodo wuxuu xal ku soo riyooday maanta wuxuu rabaa inay hergasho war ninkan nin ma aragtay wadankan wax ugu maqan ma ahan wuu xaraashooyaay ma aragtay shacabkii Soomaaliyeed oo hataa iska qaban kartaan oo ka hor imaan kartaan aaday muhiim u tahay in la isku duubsamo oo ninkan qabiil aan loo fiirinin ilma adeertiisa haday ma aragtay ka gasho meesha ay degan yihiin uu ka kicinaa guriga ilma adeertiisa ay degan yihiin ayaga ay leeyihiin hadduu u baahdo xabadu dabada ka gelina wuxuu leeyahay iga kaca aniga arag qof noocaas wax dadka inuu u taliyo la sugo dagaal joogto ah rasaasta maanta shacabka Soomaaliyeed lagu weeraray lagu baabi'i wallaahi dhagihiina ma dhageysan karaa ma aragtay waxaan codka uga xiri waxay tahay dad waaweyn oo waxa igu xirin waalidiin oo dibadaha ku nool oo yiraahan ciimo
aad u qaracmayna waxaan oo kale markaan maqalno sidaasaan maaragtay rasaasta aan uga xiray bagagagac say u dhacayso ma malaysan kartid marka sidaas daraaddeed walaalayaal dastuur ma jiro sharci ma jiro waxaasoo dhanna maba xasanaa aniga muuqaalan kasoo samaynay hadda ka hor oo aan leenahay maaragtay feelkan farmaajo uu ka tagay xasan weligiis ma furaayo feelashii farmaajo uu ka tagay wallahi inuusan saas u fiirinin magaca ilaahiyaan ugu dhaaran karaa sababtoo ah sha'niga kale iyo هذيلي وهذيلي وحالي لا قفك عرك ضياء ما عرفتي وحي كسر دعبة ربي إنه قبض وحي كسر دعبة إيه أن أنتو فريست نفتيس أنتو لا فريست ولهينين ورقدت كان أذا مسؤول كأهو ما عرفت إلهي وكعلى حساب تمام ما حد قبضها ضد كان أذا قبر ما كان جشيت سؤاله كواري والوقع قابل دون إكده لنيسا وأنا آخر حسسنين وأنا الدنيا لفت كذا أن وإحنا كور قبل إنه الصعدات جستمع هني مسكحدي يمارت جسمي سبب connection كمان دحين ما نسكو حرب markuu hadlooyo dadku waxay u maleeyaan inuu maaragtay ka hadlaayo maskaxda iyo qalbiga no wax uu kala og yahay wax kale ma jirto sidaas daraadeed qofka noocaas oo kaleenta ah in la iska qabto la iska hor leexiyo danta shacabka ayay ku jirtaa haddii la iska hor leexin waayana sidaanad maalin kasta u barakicaysiinood maaragtay qaraxii waa idin sii dheer yahay maaragtay waxyaabaha sunta iyo daraagiska diyaaradaha ay soo dejiyaan ee uu canshuurta uu ka qaato canshuur uu ka qaataa daraagis la keenaa ila boorka laga soo dejiyaa dekadaha laga soo dejiyaa canshuur uu ka qaataa xasan sheekh kadib daraagiskaas yaa cunaaya caruurtiina cunaysa dhalinyaradiina cunaysa waxaa la leeyahay wiilkan wuu ficnaan jiri muxuu kufsiga u keenay gabadhan way ficnaan jirtay maxay maaragtay war u maqlaynin maxay waalidkeeda uga hor imaatay waa la baray qur'aanka waa la baray axaadiista gabadh fiicana eed daraagiskaana diyaaradda looga soo dejinooya asaa canshuur ka qaato waa ninaan waddanka aan ka warqabin waa ninaan waddanka aan u naxaynin waa ninaan shacabka aan u naxaynin waa ninaan xataa dan ka lahayn hadduu soo laabtay hadduusan soo laabaninba danka ma laha waddankan dadkii muwaadinimada ay ku jirtayna ma dowlad taqaaniino yacni heeryada iskama wallaahi 10 daqiiqa haddaa ugu tala gashaan inaadan wax idinka aadan raalli ka ahayn shacabka soomaaliyeedow ni lagu socodsiiya haddaa idinka ugu tala gashaan wallahi waa iska horleexin kartaa oo ma aragtay shacabka awooddiisii ma isticmaalayo maxaa lagu kala jibi qabiil hebeloo waay dadka nala soo hadla qabiil saas waa laflafaa lasu sii galaa isagii xasan sheekh iyo shariifka waa isku ma aragtay abgaalkii la sii kala jijibina xal dhaha hayay kuwaas waaye agoonyaro waaye na soo fiirini hayay kuwaan waaye ma aragtay harti abgaal waa la sii kala jijibinaa sababta loo kala jibinaa xitaa politika oo loo isticmaalayo in la kala isticmaalo dadkii haddii laakiin dadkii ay isku duubmaanoo abgaaloo dhan iyo ma aragtay hawiyoo dhan iyo daarood iyo adiga jareer iyo jileec oo idil shacabkii hadday intay isku duubmaan yiraahiin wallaahi heeriyo dambe inayna nasaarnaanaynin 10 daqiiqa inay ku qaadanaynin aaminsana marka waddanka wuxuu noqon lahaa waddan amni leh يعني شركتها إيه هشيس لقلان لا عرفتي هرمرو الدون كلا حساب تمو يا باورك وإني الشعب كهستان ما عرفتي وحان اللي هو مددالنا معنا والبو برلمان عن صوت دورنا هدي دورش إيه دعيس وحي شلو كلامك سرف إستين إيه اسكو دقالين محي هاد برلمان هدي دي يسينو يرمعارض وقف يعد برلمان ما عرفتي عن صوت دورنا هنا برلمان كدورنا مدحوينه qaabka uu ku dooranayo aniga ma aragti garanayo okay sidii uu rabaa ogaasidii balaayadii qashinkii lacagtii ma aragtay uu ku firdhin jiray iyo nuucu hadda ku yimid oo kale ayuu raadinooyaa taasna shacabka Soomaaliyeed waxay u tahay mugdi dhaafay awalay maanta mugdi ku jiraan markii la doortay bishii ma aragtay May horaan u sheegay waxaan dhahay mugdi 4 sano oo mugdi hadda soo socoto ayay shacabka Soomaaliyeed ay galeen mugdi kasi mugdi leh waa marka intuu ninkaan ma aragtay meelahan uu dhex murufleenayo ama uu dhex taagan yahay marka silac iyo saxriir ayay ku nool yihiin shacabkii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku noolaa sidaas daraadeed 24 saac cabsi canshuura laga qaada oo double oo ma aragtay qofka meeshuu cagta dhigaayo iyo meeshuu ku nuuxsanayo iyo meeshuu ma aragtay degan yahay meel kasta canshuur dhab qofka haddii meel uu ku ganacsanayo haddii meel ma aragtay uu degan yahay waxaasoo dhan canshuuraadkiisa waa in loo fiiriyaa dakhliga soo galay looma fiirinayo meel heblaay intaas 20 nin oo kala duwan oo ma aragtay dariskii dawladdu ku labisan oo ka qaadaya canshuur oo dhibaateynaya shacabkii oo ma aragtay meeshay istaagaanba lacag okay suuqyadii ay ku ganacsanayeen hadda beec oo la gadanaa oo ma aragtay ganacsato lacag ay shubaysa oo xasankii ee lala gogortama uu ka gadana meel walba wuxuu leeyahay meeshaas beecay ita dal ma aragtay dal xuree dal xaraashi soo maaha wallahi waa isla xisaabtama qofkii dawladda meelay leedahay ganacsada ee lacag ku bixiyo wallahi waa lagu xisaabtamaa lacagtaasna ganaax iyo waxaad ka dhaxli doontaa ima aragtay in
lagaa eriyo sababtoo adoo og meel dowlad ay leedaho shacabkii soomaaliyeed oo dhan u dhexeeyo haddaad xasan intaad la gorgortantid lacag aa ka siisatid saxiix xasan ma shaqayn doono haddaad is leedahay saxiix madaxweyneha kugu dhacay meeshaan adaa lahaan doontid suuqa siinaay dhiig badanaa ku maqan suuqa siinaay aqli badanaa ku maqan suuqa siinaay qarash badanaa ku maqan oo shacabka soomaaliyeed ay lahaayeen qof gooni u iibsan kara ama qaadan kara ma jirto hadduu xasan kaa iibsado adaa maaragta khasaarada qabo sidoo kale meeshaan hadda la rabo in laga kiciyo maaragtay shacabka ee la bursanaayo ee la leeyahay ka kaca laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay saaka inay si xooggan isaga dhiciyeen ay bursadeen dowlad isku sheegi si fiicanay u bursadeen waxaa idin leeyahay oo guuriyo si fiican aad samayseen sidaas u baraarugsanaada sidaas hurdada uga kaca sidaas haddii mooryaan uu soo dirsad ay idiin imaadaan isaga dhiciyo oo rasaasta dhulka u dhiga waa kan carareen ayagoo hub waaweyn wato oo dowlad kale inay la dagaalamayeen aa u malaysa shacabka waran canshuurta ay bixinaayeen lagu dilaayo oo maaragtay hub inta loogu soo gato lagu garaacayo lagu dhibaateenaayo walaalayaal hurdada ka kaca oo daraagiskan elbooradan liiga soo dejinayo iyo dekedaha ka hor imaada adiga ilmahaada yare aan maaragtay waxna ka warqabinaya 15 16 17 jiro oo shalay kuu yaraayo oo kuu wanaagsanayo islehed maasha allah maanta markuu kaa hor yimaado ogow in daraagiska xasan sheekh uu kasoo dejiyo elaboorka cunugaada iyo gabadhaada maaragtay ay daldalooyinay eber looga siinooyo si kastuu niila dagaalamoyaa ma fahmaysi qabiila ku taageersantihiin war dhul iyo cir meel kastoo idinkala dagaalamoyaa roobka idin da'aayo hadduu joojin karo wuxuu dhihi lahay roob iyo soo di'i ha heerkaasuu gaarsiisan yahay ninkaas haddaa ogaan leedin haddii kale qofka hal maalinaa la fiiriyaa maaragtay waxaa la yidhi dadka hal malaa la dayaa duurkana laba mar duur markaad geshid meel duur ah ku lugaynaysid waa labada dhinac inaa iska fiirisaa laakiin dadka hal mar uu daymo u baahan yahay laba mar uma baahan 4 sano hore aragteen 4 sano oo beerdara ah ugu soo darteen dadka ku nool maanta yaa uga xun dhibaatadan 24 sac ku dhex jiro xabadaha dushooda ay ka socdaan oo madaafiicda qaraxa barakiciska baahida boobka maaragtay dastuur meeshaas kama shaqeeye qof walba waa inaad maaragtay juhdigaadii awooddaadii xoogaada la soo baxdaa mucaaridka arkaysiin oo mucaaridka maanta shir mucaaridka naga dulqaadi doon waxay idinka dulqaadayin male ayaga dhexdoodii markay xasan soo heshiin waayeen intay soo baxeen isugu imaadeen sheekh shariif gurigiisii ayay ku shireen haddana waxay kusoo kala baxeen farataagtaag ilaan qaar xasanka uu soo dirsadaya inta la socdo oo munaafiqiin ahoo warka kala geegeynaya niman le rufiyaamiin warka inta geey ilaahay waxaan uga baryaa si xun iyo silac maaragtay iyo foolxumo inay u wada dhammaadaan mid kastoo munaafiq ee ummadda soomaaliyeed barakicinaya ee maaragtay munaafiqeenaya ee raba inuu waxaas ku shaqaysta ee ku taajiro ilaahay kama cabsanaysiine dhulka allah idinla gooyo salaama muuqaalkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa waa halku dhigeenii iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaada qalinka kheyrka aad dhaaf